Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Tusaale Janaal. Maanta waxaa idiin soo gudbinayaa xigmado xaqiiqooyinka nolosha ah taabanaya. Xigmadahan oo noocyo badan u kala baxsan. Waxaa dhici kara qaar inay hore kuu soo mareen, qaarna inay hadda kadib ku soo mari doonaan. Fadlan haddaad nagu cusub tahay, subscribe inoo saar, fiidiyoogana like saar, mahadsanid. Xigmadeena koowaad. Waxa aan dhadhamiyey wax walba oo qadhaadh ah, mana arag wax ka qadhaadhan in aad dad u baahato. Micnaha waxay u dhigan tahay marka aad dad u baahato, xitaa hadduu ahaa qof aad isku fiican tihiin, wuxuu noqonayaa qof kale. Dabeecadihii aad ku baratay way beddelmayaan. Kista aad u baahatay ayaa sabab u ah waxaas oo dhan. Haddii aad adiga naftaada jeclayn, had iyo jeer waxaad daba ordi doontaa dad aan ku xiisaynaynin, oo aan ku danaynaynin, kuna rabin. Sababtuna waxay tahay qof naftiisa daryeeli waayey, jeclaan waayey, cid jeclaanaysa ma leh. Muhiimadda koowaad waxaad siisaa naftaada. In aad dadka qaar ka saartid noloshaada macnaheedu ma ahan in aad iyaga neceb tahay, kaliya waa inaad ixtiraamayso naftaada. Marka aad ku qanacdo qofka aad tahay, oo aanan qofna isgarab dhigaynin, oo naftaada qof kale barbar dhigaynin, qof walba ayaa ku ixtiraami doona. Waxa qofka u horseedo guushu waa dhiiranaan xagga fikirka ah, dhiiranaan xagga fulinta ah, iyo dhiiranaan in la aqbalo guuldarrada. Qof walba wuu heli karaa waqti uu kaga fiirsado arrin ku cusub, laakiin ma jiro qof heli kara arrin uu ku degdegay waqti uu kaga fikiro. Haddii aad ka heshay fiidiyoogan like saar, haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar. Mahadsanid.